لنا في رسول الله أحسن أسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث السادس، وحال ورنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحيتي سمعت رسول الله إلهي رسول كيس أيان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول رسولك أصيغو دهيو إن المؤمن الروح مؤمن كاهي ليدرك وحو قاراه بحسن خلقه دبيعدي سونا قيد وحو قاراه درجة الصائم القائم، درجة الصائم روح الصوم درجديسة ولي هدنا القائم تاغن وقيام الليل كأتاغن. ودرسي نشاناد كتاب كيني تحفة المشتاق. وعن سوق قارني حديث كاللحاد وحال قورنا يا حديث كاس أمنا عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق ayaa laga warinayaa. umra Aisha marka tarjamadeedu waa tarjamo iska waadixa oo mashhuur ah oo hadal badan uma baahno. waxay kamid aheeday min ummahatil mu'miniin, xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabigu wuxuu guursadaa la sheegaa sanadkii 10aad ee nubuwada, markii nabiga bicthadiisa laga joogo 10 sano, 11 waa la sheegaa. xiliyadaasuu nabiga guursada ayadoo 6 jir ah la sheegaa in nabiga loo guuriyay oo macnaha lagu mehriyay, laakiin waxaa loo dhisay guri loo geeyay 9 sano ayadoo jirto. nabiga waxay la joogtaa leeyahay 9 sano ayay la nooleeday nabiga calayhi salaatu wasalaam. xaas oo gabarnimo uu ka guursadayna oo ayada aan ahayn ma jirin, oo arintaas ayaday u gaar aheedo. inta kale nabigu xaasaskiisa u guursaday waxay ahaayeen dad horay guur u soo maray oo garoobnimo uu ka guursaday nabiga calayhi salaatu wasalaam. Aisha waxay kamid ahayd la sheegaa min abrazi saxaaba, dadka ugu saxaabada ku ugu caansan ugu magac dheer ayay kamid aheeday. waxay kamid ahayd dadka ugu xog ogaalsan nabiga calayhi salaatu wasalaam arrimihiisa iyo xogtiisa iyo waxyaabaha arrimihiisa khaaska waliba. waxayna ahaadaaleyda axabba nisaa'ihi ilayhi, naagaha ama xaasaska nabigu inta midda ugu jecel yahay ahaadaaleyda markii Khadiija laga reebo. Aisha waxay aheeday caalimatan bi ahkaam diin, gabar ahkaamta diinta aad u taqaano oo loogu soo laabto oo marjic u ah diinta masaa'ilka diiniga ayay aheeday. waxay kamid aheeday min akthar as-sahabati riwaayatan can an-nabi sallallahu alayhi wasallam, dadka ugu badan axaadiista laga soo wariyo nabiga calayhi salaatu wasalaam. saxaabada soo warisa kuwa ugu badan ayay kamid aheeday. waxaa la sheegaa axaadiista laga wariyo waxay gaartay 2210 xadiis. marka Aisha warkeedu waa iska cad yahay, wax hadal badan uma baahnee. xadiidkaas umuna Aisha ayaa warinaysa, waxay leedahay rasuulka ilaahay yaa maqlay soo dhahay sallallahu alayhi wasallam, ruuxa mu'minka wuxuu ku gaarayaa dabeecad wanaagiisa iyo akhlaaqdiisa fiican qof sooman oo haddana habeenkii qiyaamul leyl u taagan. maalintii oo dhan waa sooman yahay, haddana habeenkii qiyaamul leyl u taagan. qofkaas asaga ah oo sooman ee haddana qiyaamul leylka u taagan, darajada iyo qiimaha ilaahay agtiisa uu ka leeyahay oo qofka mu'minka ku gaaraya hadduu akhlaaqdiisa hagaajiyo. xadiidka marka wuxuu noo tilmaamayaa akhlaaqda wanaageeda inuu muhiim yahay, in dabeecadda iyo akhlaaqda qofku uu iska hagaajiyo oo uu noqdo qof dabacsan oo mar walba akhlaaq wanaagsan dadka kula dhaqma. hadda arintan waxa saddexdan la isula mid dhigay akhlaaqda wanaagsan iyo soomka iyo qiyaamul leylka. waxaa la yiri saddexdooduba waa jihaadu nafsi,
وجهاد مع نفسي جهاد ولي بجوكته أو قفك نفتيس أو لقليو قفك الصومن نفتيس وحكول الجهادية إنه كوكلف إني أقبشو قاجة أون يهراد إنه معاصدي أو نفتيس كعليو أرمها سو نفتي كل دقالما يقول الجهادية جهاد وجوكته مركب قفك قائم كهو قيام الليل كبيرك أسو جيدني نفتيس وحكول دقالما يا وكل حربنا قيام الليل كدباتدي شدديس إنه أقبل سي نفتو أقبشو نفتو إني أقبشو حلقاس دادكو أي جيفان أي هرديان إني سوك عضو أي دادكي هرداي هردد ومعله نفتي وقفكو مركا هردد وديدو وأرهن إذن أضاقو جهاد وباهانو نفته إن لقول جهاد أيتا قف كان أخلاق ديس وناجيو دبيعة في عنني أسأل لفتركيس الجهاد بو نفتيس كل جراه وحو نفتيس كو كلفة يا أما كو ربين يا إني أقبشو معناها معاشرة وناكسون ديب المعاشرة مع الناس والإحسان والبر تاتك إنو أخلاق وناكسين دقن في عن كل دقم إنو إحسان سمي إنو سمفال سمي يأرمها سوكرا أو نفتو waxyaabo ay kaanaysaa ayuu ku qasbaya saasa marka saddexdooda iskala mid la saga dhigayo qofka sooman oo qiyaamleelku u taagan oo hadana maaragtay ayuu la mid yahay ruuxa mu'minka ah oo akhlaaqdiisa hagaajiyo الحديث السابع حديث كتضبات مروي أسجنا وحى لجورني عن أبي أمامة صحابي قال أبي أمامة رضي الله عنه قال أبو أمامة وحوري قال رسول الله رسولك إلهي وحوري صلى الله عليه وسلم أنا زعيم وحنوك فعلقال يا ببيت قري قري في ربض الجنة جنة هريره هذا كويا لماشى جنة كبحصن وبنان كذا كويا له لمن روح ينوك فعلقال يا ترك كتجه المراء الضادة روح الضادة يمرنك إسكداية guri halkaas ku yaala ayaan anigu u kafaala qaadaya wa in kaana haba ahaado ruuxaasi muhiqqan mid xaq ku taagan oo xataa mid xaq ku taagan oo saxan haduu doono ha noqdee ruuxi dood iyo muran ka taga aniga ayaa guri jannada hareeraheeda meesha banaankeeda ah deyrkeeda ku yaalo u kafaala qaadaya iyo leeyahay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wa bi baytin gurina waan kafaala qaadaya gurigaasoo fi wasad aljannati jannada bartamaheeda ahaaday oo guri jannada dhexdeeda ku yaalo liman ruux ayaan u kafaala qaadaya taraka ka taga alkadiba beenta ruuxa beenta iska daaya wa in kaana haba ahaado ruuxaasi maazixan mid kaftamaye xitaa soo kaftamaya qofku ha ahaatee qofka sheekada iyo macnaha beenta iska daaya qofka beenta ka taga qofkaas asagana waxaan kafaala qaadaya ama u ballan qaadaya guri ku yaala bartamaha jannada wa bi baytin guri baan u kafaala qaadaya oo fi wasad aljannati jannada bartamaheeda ku yaala liman ruux ayaan u kafaala qaadaya taraka iskaga taga alkadiba beenta wa in kaana haba ahaada maazixa mid kaftamaye wa bi baytin gurina waan kafaala qaadaya beydkaasoo fi a'la aljannati jannada meesha ugu sareysa ahaadayo macnaha bartama ee meesha ugu sare jannada ku yaalo wa liman ruux ayaan u kafaala qaadaya حسن هجاجي خلقه أخلاق دي سيدة قنكيسة حديث كان أسيغنا وحا لقورين يا صحابي قال لي أبو أمامة الباهلي حالي صدي بن العجلان أبو أمامة الباهلي صحابي كان أبو أمامة الباهلي وحو أسونا أحاينين صحابي مشهورة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كمد وحو كمد هاي رجي كقيب قال حجة الوداع رسولك عليه الصلاة والسلام حجكي حجة الوداع دتك قيب قال أيو كمدها وعو كمدها دتكي بيعة الرضوان بيعة الهجرة كقيب قال أو
إلهي سبحانه وتعالى قرآن كشيء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة dadkii maaragtay geedi hoosteeda nabiga mubaayacada kula galay ayuu kamid ahaa oo bay'atu ridwaan bay'ada dhan loo bixiyo Abu Umama nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam gadaashiisa uu ka guuray dhulkan maaragtay Xijaas wuxuu u wareegsaday Masar oo muddo ku noolaa kadibna haddana waa ka soo guuray wuxuu degay meesha la yiraahdo Himsa oo ku taalo dhulka Shaam waa magaalo Suuriya hadeertan kamid ah ayuu degay halkaas oo deegaan u heeday ilaa uu ka geeriyoodo halkaas ayuu ku dhintay la yiri sanadku markuu ay 86 hijriyada umrigiisu aad u yaraayo asoo dhalinyaraha dhintay 30 sano ayuu jiraa la sheegaa markuu dhimanayay wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee Shaam ama dhulkan Shaam la yiraahdo ku dhinto asxaabta nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam kamida Abu Umama wuxuu kamid ah ragga ahadiithta faraha badan nabiga ka soo wariyay kaleeyhi salaatu wasalaam xadiidkiisana ama xadiidkiisana hadda waxay ku badan yihiin culimada shaamiyiinta agtooda ragga dhinaca Shaam sanadkaas wax ku wariya inta badan xadiidkiisa soo wariya saxaabigaas asaga ah ayaa xadiidka warinayay wuxuu leeyahay saxaabigan nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay waxaan u kafaala qaadayaa oo u ballan qaadayaa guri ku yaala jannada hareeraheeda hore meesha macnaha deyrkeeda banaankeeda ah guri ku yaala ayaan u ballan qaadayaa qofkii murunka iyo dooda isaga taga ruuxi murunka iyo dooda iyo waxyaabaha iska daaya hadduu doono xaq ku taagnaaday asoo xaqiisa xataa ku doodaya ruuxi dooda ka taga guri halkaas ku yaal ayaan u ballan qaadayaa hawlii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ومعناه waxa la tilmaamayaa arintaas macnaha doodu inaysan wax fiican ahayn oo qofku inuu iska daayo mar walba ay u wanaagsan tahay guri bartamaha jannada ku yaalna waxaan u kafaala qaadayaa hawr nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ruuxi beenta iska daaya hadduu doono haba kaftamay beento idin waa arin fool xun marka nabigu wuxuu leeyahay qofkii beenta iska ilaaliyo oo ka taga waxaan u ballan qaadayaa guri asigana bartamaha jannada ku yaalo guri jannada dhexdeeda ku yaalo ruuxi akhlaaqdiisa hagaajiyane waxaan u kafaala qaadayaa hor nabigu guri ku yaala fi a'la aljanna jannada meesha ugu sareysa guri ku yaala marka akhlaaqda wanaagsan siday u fadli badan tahay iyo xadiidku tilmaamaya waxaana wali ku dhex jirnaa baabkii ahay fadliga xusnul khuluqa u leeyahay qaybtaas tamba marka xadiidka loo soo qaatay jumladan qaybtan wa bi baytin fi a'la aljannati liman hasana khuluquhu intaas ayaa laga rabay oo baabka loogu soo qaato الحديث الثامن حديث كسيدات عن رافع ابن مكيث أيا لغورين يا رضي الله عنه وكان وحو أها رافع ممن دول أيو كمدها شهيد كقيب قال حديبية صلح حديبية لغو مقعابي صلح الحديبية أيو كقيب قال أن النبي أيون لغوري ورك النبي كوري واك عن رافع وحا لغوري أن النبي هل كاسا اسكحرا intaan وكان ممن شهيد الحديبية وجملة معترضة معنى أسيقيا فافاهين لغا بحنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه يري حسن الخلق دبيعد وناقيدو نماء زيادة واي وبركو وسوء الخلق أخلاق دا حمانتي دا ما دبيعد حمانتي دا شؤم باس ويو بحفال حماه برك الله آنا وي والبر سماها أو سمافلك قفك سميان زيادة وي في العمر عمرك للزيادية والصدقة صدقة تمنع وحي ديداه أي ريتا ميتة السوء سيحن أدمشدة ميتة السوء سيحن أدمشدة أي ريبسا وايها صدقة أو قفك إنه سيحن أو أدنتو صدقة أيا كعلينيسو حديث كان سيدي أصلا وحال لقورين يا صحابي قاس ليلى رافع ابن مكيث ورافع ابن المكيث الجهني وحوكر أشي قبيلة اللي هجرة جهينة أيو كمدها من صحابي هو هايو آدوين
وكميدها سيد هذا ماشي كوغوقنا وكان ممن شهد الحديبية سلحي حديبية وبيعة رضوان أي كدع عدي رقي كقيب قال أيو كميدها وحال الشيقة وكان حامل لواء جهينة يوم الفتح maalintii fatxu maka ay dhacaysane reer juhayna calankooda ninka maaragtay sida ayuu ahaayo nin geesiyo ahaayo maaragtay raga cidaas ugu horeeya nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa ninkan had madax uga dhigaa leeyri ama maaragtay ka shaqaaleysiiyay reer juhayna inuu sadaqaadka ka soo ururiyo oo nabiga wakiil uga ahaa jira sadaqaadka iyo zakawaadka reer juhayna inuu ka soo ururiyo saxaabi sidaas oo ayo nabigane aad iyo aad maaragtay ugu dhow geesina ahoo dagaalada iyo markii la yiraahdo baafkaas la joogo aad ugu sareeyo saxaabigaas asaga wuxuu leeyahay marka laga warinayaa عن رافع بن مكيث بالغ ورينيا رضي الله عنه وكان وحونا هي رافع ممن شهد الحديبية تدك حديبية حاضر وكمد هي أن النبي أيا لغ وري النبي صلى الله عليه وسلم قال نبو إنوري النبي محوري حسن الخلق نماء أخلاق وناجد وزيادة يبرواق وقف هو زيادة التهي رزقي أكو زيادة أجر أكو زيادة مكانية درجة وين إلهي أكتس قفو كجار أخلاق مكوها جاجيو سوء الخلق نوحو النبي وشؤمي باس وبركة الآن شؤمي وضد اليمن بركة وحكا سهر جيدا وبركة الآن تعيال إلى شؤمي قفكو مركا دو أخلاق درينيا شؤمي إيا بركة در بدن أو قواوي بريغا إيا سمفالك النبي وحور وزيادة أو عمرك للزيادة وقفك عمري إيسا الله بركين يا مركو ماركتي دادك أسمفالو إحسانك يوناك سميه عمري انتي وهيستو إلهي أوسيا الله بركين يا مركز وحفي عنكو قبسانا ياو صدقاتنا النبي وحوري تمنع ميتة السوء صدقات وحي ريبتا أما إيدي داهي مارك تقفك كور إساقيسا إنو صحن أولين تقفكو مثلا إني كنت ماذا موتو الفجأة أو كلا سدق دي قفك إنو أولين توكلا وحيابها دباتو مارك تأدو دباتي قفك مركو إنو كولين تو waxyaabaha soo dhan waxa ka reebayo ama maaragtay ka difaacayo sadaqada xadiisku marka waxa uu noo tilmaamayaa akhlaaqda wanaagsan sida ay fadli badan tahay akhlaaq xumadu nooga digaya inaan samafal aan sameeyno dadka aan maaragtay wanaaga iyo khayrka aan ugu samafalno ayuuna amraya sidoo kale xadiisku waxa uu noo tilmaamayaa sadaqadu inay aad u fadli badan tahay oo ay ka celinayso waxyaabo badan oo dhibaatooyin ay ka hor istaagayso ilaahay uu kaaga ilaalinayo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam رشفنا من الأخلاق أعظم رشفة فأحيت لنا أمجاد عز وسؤدد توالت مزون الخير في كل بقعة